aqoonyahan maxamed ibraahim xaaji cabdilaahi gamgam oo ah aqoonyahan reer somaliland heer caalami ugu takhasusay habka xisaabaadka casriga ah ayaa waxa uu maanta hotel mansoor ka furay magaalada hargeysa hay-ado iyo shirkado ku shaqeeya habka xisaabaadka halkaasi uu tababar casri ah uga furay injineerku waxaana halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee dalada dhalinyarada somaliland ee soonyo iyo marti sharaf kale ugu horeyn injineerku oo sharaxaya ahmiyadda uu u leeyahay aqoon kororsigani waxa uu yidhi My aim is to make Somaliland the future, SAP's the future, and I hope inshallah you share with me today this workshop, guys. ujeedadiisu ugu nimid waxa weeyaan inaynu kala kororsano aqoon wixii aan isdheernahay oo aynu ka faa'iideysano aqoon-yahanada reer Somaliland ee runtii leh xirfadaha gaarka ah sidii laga dhawaajiyayna aqoonta qofka dhalinyaradu u baahan yahay waa xirfadaha khaaska ah ee dheer digriyada caadiga ah ee jaamacadaha lagu barto si qofku u yeesho runtii xirfadu kula qabsan karayo seelada shaqada waxaan kaliya u istaagay inaan maxamed uga mahadnaqo maxamed ibraahim xaaji cabdilaahi oo ah nin dhalinyaro ah oo dalka Ingiriiska degan isla markaana barnaamijkan halkan la idinku tababari doono isagu gartay inuu wadankiisa markuu yimi free ugu tababaro waa isaad ka war haysan barnaamijyada ugu waaweyn ama waxa la yiraahdaa waa the largest business software adduunka ka jira oo 293 kun oo qof in ka badan ba ku shaqeeya aadan cabdi ciidlahan cable TV hargeysa